السلام عليكم. sidee ayuu diinta islaamka ku qaatay Pogba ciyaaryahankani u ciyaara kooxda Manchester United iyo xulka qaranka ee Faransiiska. Paul Pogba ayaa ka sheekeeyay sida uu diinta islaamka ku soo galay iyo waxyaabihii u horseeday inuu noqdo islaam. haddaba waa kuma Pogba, halkee ayuu ku dhashay ciyaartoygan muslimka ah? fadlan haddii aad muuqaalkeena daawanayso ha ka ilaawin inaad like saarto kuna soo biirto channelkeena adigoo dhahaya subscribe, muuqaalkeena aad sii share gareyso. kusoo dhawaad muuqaalka dhammaystiran. Paul Libel Pogba waa magaciisa saddexan. wuxuu ku dhashay deegaanka Liger-sur-Marne ee Faransiiska 15 bishii Maars sanadii 1993. waa 27 sano jir. asalkiisa waa Afrikaan, wuxuuna ka soo jeedaa sida la sheego waddanka Senegal, halkaasoo ay ka yimaadeen hooyadiisa iyo aabihiisa. ciyaartoygan laacibka ah ayaa qaatay diinta islaamka isagoo sheegay in baaritaan dheer kadib ogaaday in diinta islaamka ay tahay midda kaliya ee saxda ah. waraysi uu siiyey wargeys ka soo baxa dalka Ingiriiska oo lagu magacaabo The Times ayuu ku sheegay in isaga uusan horey muslim u ahayn, balse hooyadiis ay haysatay diinta islaamka. Pogba ayaa xusay in markii hore uu su'aal iska weydiiyey waxyaabaha ku qasbaya inuu islaam noqdo, balse markii uu diinta islaamka qaatay uu qalbigiisa xasilay, sida uu sheegay Paul Pogba. ciyaartoygan caanka ah ayaa markii hore si weyn u damcay inuu qaato diinta islaamka, waxa uuna bilaabay inuu baaritaan ku sameeyo diinta si uu u fahmo, isagoo la socon jiray saaxiibo badan oo muslim ah oo ka dhaadhiciyay wanaagga islaamka. Paul Pogba ayaa yidhi, diinta islaamka waxay iga dhigtay qof sidii hore ka wanaagsan. sanadkii la soo dhaafay ee 2019 waxaa baraha bulshada la soo geliyey Pogba oo la sawiran difaaca kooxda Chelsea ee Cruzom xilli ay acmaasha cumrada ku gudanayeen magaalada barakeysan ee Maka. waxaana sidoo kale sheegay Pogba in diinta islaamka ay bartay mahadcelinta iyo qadarinta dadka. waxay diinta islaamka ii horseeday isbeddel, qalbiga ayay ii dejisay, noloshayda waxaa ku yimid isbeddel. horay ma aanan u ahayn qof muslim ah, inkastoo ay hooyaday ahayd muslim. sidaasi ayaan ku soo barbaaray, waxaana qadarinayaa qof kasta, ayuu yidhi Paul Pogba. markii la weydiiyey sababta u horseeday inuu islaam noqdo, waxa uu yidhi, waxaan leeyahay saaxiibo badan oo islaam ah oo aan had iyo jeer sheekaysano. Pogba waxa uu sidoo kale sheegay in markii uu saaxiibadiisa la tukaday salaad uu si weyn u jeclaaday diinta islaamka. maskaxda ayay ii furtay, qofka wanaagsan sidii hore ayay diinta islaamka iga dhigtay. islaamka waxa uu nafarayaa qadarinta aadanaha, ayuu yidhi Pogba. Paul Pogba waxa uu ka mid yahay tiirarka waaweyn ay ku taagan tahay kooxda Manchester United. waxa uu ka ciyaaraa khadka dhexe, waana laacib ay si weyn ugu faanaan taageerayaasha kooxda Manchester United. fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkeena like share kuna soo biir channelkeena imaasho adigoo dhahaya subscribe, siina share garay muuqaalkeena. aad ayaa u mahadsan tahay. muuqaalka xiga ayaa noo ballan ah. wassalaamu calaykum.